waxaa kulankii ugu horreeyay oo noociisa ay isugu yimi madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Somaliland kulankaas oo labada dhinac ku gaareen heshiis ka koobnaa 4 qodob oo nuxurkiisu ahaa in la sii wada hadallada. Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo dhankiisa wuxuu ku tilmaamay heshiiskaas mid guul ah ummadda Somaliland una horseedi doona helitaanka himiladoodii. wuxuu ahaa kulankani kulan aad iyo aad u qiimo badan. Somaliland magac weyn iyo sharaf u soo hooyay. waxaa maanta halkaa ka muuqatay oo dunidu ka markhaati kacday inay Somaliland iyo Soomaaliya laba dal oo wada hadli kara ay yihiin. waxaa halkaa ka muuqatay qadiyadda Soomaaliyeed waxay u taagan tahay in iyadoo wanaag la jecel Soomaaliya iyo dadka ay walaala yihiin haddana aan qadiyadda Soomaaliyeed mid gorgortan gooniya geli karta inaanu ahayn ee ay madax banaanideeda iyo wada jirkeeda iyo muxuu ahay Soomaaliya wax la qabsashadeeda ay ka midaysan tahay. waxaan halkaa guul wanaagsan baa ka soo hoyatay insha Allah tacaala sidaas ayaynu ku sii wada doonaa qaranimo dunida dadkuna inagu aqoonsan doonaya caalamka. madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo la hadlayay ganacsada Soomaalida habeennimadii xalay dhankiisa wuxuu ku tilmaamay heshiiskaas mid dan waa guud ahaan ummadda Soomaalida. farxaday noo tahay in Soomaaliya meel wada jeesato maanta waa la socotiin waxaan noo bilowday wada hadal rasmi ah in walaalaheena Somaliland aan la sameeyno taasna waxaan u aragnaa horumar qaranka Soomaaliyeed oo gaaraya maxaa yeelay marna Soomaaliya kala maarmayso marka in la wada hadlo oo mashaakilka iyo waxa la kala tabanay laga wada hadlo waxaan isleenahay waxa ugu fiican wax lagu xalli karo talada oo soo jeediyay siyaasiga Cabdullaahi Cusable na runtii aad iyo aad aan soo dhaweynayna anaga marna dhinaceena wax kama xumaanayaan walaalaheena waxaan rajaynaynaa iyaguna inay dhinacooda wax ka xumaanin marka qof walba waa siyaasi dhinaciina qayb ka qaata gacmaha la isqabsado reer koonfurka wixii laga tabto dhabar ka saartaano reer waqooyiguna ayaguna aan naqdaan dad la xalli karo yay ku dhagin waa gooyna aad iyo aad madaxweyne Sheekh Shariif oo waraysi gaar ah siiyay Home Cable TV wuxuu ballan qaaday inuu sii wadi doono wada hadallada haddii mar labaad loo doorto xafiiska haddii kalena uu ka rajaynayo xukuumadda bedesha inay sii wado hanaanka wada hadallada si loo gaaro heshiis rasmi ah. maxay ka rajaynayaan labada dhinac wada hadallada bilowga ah waa kuwan ra'iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka gaashaandhigga dowladda ku meel gaarka iyo wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo mid kasta dhankiisa u sharaxayo rajadooda. haddii bas loo meelood la kala taagan yahay laakiin dad waxyaabo badan isku xidhan aan nahay Soomaalidu sad ogtahay waa dad walaalo ah isku afa isku diin isku dhaqan ah in marka yaani la ogolaadaba in la wada hadlo oo miiska la soo wada fariisto ayaan anu guusha ugu weyn u arkaa. muhiimaduna waxay ahayd maanta inay u cadeeyaan dadka in ay ogol yihiin in la wada hadlo in waxa kala haysa ama ay kala sheeganayaan Somaliland ba miiska la soo dhigo laga munaaqashoodo marka muhiimadda nuxurku wuxuu ahaa in la ogol yahay in wada hadalladii ay labada guddi ka soo shaqeeyeen hor loo sii wado. labada geesteeda waxaan jecelahay inaanu si nool uga qayb galno inaanu rabitaanka shacabkayga iyo xukuumadda iyo dadka reer Somaliland in aanu ka turjino waxaanu jecelahay inaanu dariiqan noo noqdo dariiq cusub oo aan hore u mari jirin oo noo fududeeya sidii aanu ugu guuleysan lahayn himilada aanu leenahay qaran. waxaanu jecelahay inaanu Somaliland aanu helo fursado aanu ku caawino sidii nabad iyo nabadgelyo iyo xukuumad wanaagsan loogu sameyn lahaa oo dariiqa nabadda ee imika u socda uu si wanaagsan ugu dhameyn lahaa. waxaanu jecelahay dhankayga inaan anagu ka dadaalo wax la wixii suuragal ah ee horumarinaya wada hadal aanu la nimaadno geesteeda. TFG waa xukuumad ku meel gaar ah waxaa waqtigeedii ka harsan 2 bilood oo kaliya. baarlamaanka Soomaaliya ma aha mid shaqeynaya oo la horgeyn karo heshiiskan. haddaba dhanka TFG sharciyad intee la eg yeelan kara heshiisku rajo intee la eg bayse ka qabaan xukuumadda bedeli doonta inay sii wada hadallada. waa kan mar kale Xuseen Carab baarlamaanka joogida madaxweynuhu wuxuu leeyahay power ku saxiixi karo wax isagu decreto ku soo saari karo laakiin waxa weeye muhiimaddu in la bilaabo imika wada hadallada insha Allah dawladda dambe ay timaadana taas bay hore u sii wadaysaa saad ogtahayna 12 sano ugu dambeysay wax la sameyn karay maanta la sameeyay taasoo ah inay madaxdu ogolaato in la sii wado oo munaaqasho la saaro oo guddi heer sare maartay xataa wasiirar ka mid yihiin ay wada fadhiistaan wada hadlaan maanta labadii madaxweyne isu yimaadaan oo iska can qaadaan oo maartay ay yiraahdaan waxaan ogolnahay in la wada hadlo marka marba haddii la ogolaado waxaan qaba wax kale dhan insha Allah way. Somaliland waxay ku shaqeysaa hanaanka xisbiyada badan waxayna leedahay 2 xisbi mucaarad oo looga bartay inta badan inay dhaleecayaan tallaabooyinka ay qaado xukuumaddu. haddaba waa sida aragtida xisbiyada mucaaradka. ugu horeysa waxaan leeyahay kulankani waa bilow aad u wanaagsan oo ah inaan inakoo Soomaaliya iyo Somaliland ka wada hadalno inakoo qadiyadeennana marnaba aanan meel cidla ku tuurayn. waxaan rajaynayaa beesha caalamku idinku wada hadla haddii yidhaahdeen
oo markhaatiin laga ahaanaya wixiina inaan dhamaysano waxay noo yaallay waxa weeyaan innakuna inaan homeworkgeena sidaan u wada hadlayno hadduu ilahay idhaahdo aan ka shaqayno waxaana lehay waa bilow fiican waxaan rajaynayaa insha allah inay mustaqbalka natiijo fiican inooga soo baxdo hadduu ilahay idhaahdo magaalada sahay waa xood amba laba dowladooda is agyaala noqdaan danta soomaalida ku jirtaa oo waxba la istari karaa marka waxaan leeyahay shacabka reer somaliland saa ku seexda guul baa labada geesoba soo hoyatay ayaan ku adkayna inay taageeraan iyaguna baaqa iyo seexyada labada madaxweyne soo saareen waa maxay danta wadahadallada ugu jirtaa labada dhinac Somaliland waxay ku dhawaaqday inay ka goosatay Soomaaliya 1993 ilaa muddadaas waxay baadi goob u jirtay sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalami ah sida la aaminsan yahay beesha caalamku waxay Somaliland xujo kaga dhigtay inay wadahadal la soo gasho Soomaaliya ayna soo wada gaaraan heshiis rasmi ah si loo siiyo aqoonsi waxay waqtigan ka faa'iideysanaysaa fursado badan iyo qodobkii lixaad ee go'aamadii ka soo baxay shirkii London waxayna rajaynaysaa in wadahadallada ay sii wadi doonto dawladda rasmiga ah ee dhalan doonta wixii ka dambeeya bisha August dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya wadahadalladan waxay u leeyihiin muhiimad gaar ah waxa dhamaaday waqtigoodii waxayna ku jiraan olole siyaasadeed ay ku doonayaan in mar labaad dib loogu soo doorto waxaan sheegay ku jirin wadahadallada ay la bilaabeen Somaliland inay kaga heli doonaan kalsooni ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan beesha caalamka taasina ay dhabada u xaari doonto in mar labaad loo soo doorto xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland wuxuu goobjoog ka ah goobtii lagu kala saxiixday heshiiska hase ahaatee wuxuu iskaga baxay goobtaas qadar yar kadib markii ay labada dhinac bilaabeen inay isdhaafsadaan qodobadii heshiiska Puntland waxay ku andacoonaysaa inay xaq u leedahay in laga qayb geliyo wadahadallada kamana raali ah heshiiska hadda la gaaray sida uu warbaahinta u sheegay madaxweynaha maamulkaas TFG iyo Somaliland labaduba waxay si isku mid ah aaminsan yihiin maadaama ay Puntland ka qayb ka tahay Soomaaliya ayna matasho dawladda ku meel gaarka ah inaan boos uga banaanay wadahadalladan madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed Shaleen gelinkii hore wuxuu kulan albaabada u xiran yihiin kula qaatay hotel Al-Ghazar madaxweynaha Puntland oo ay weheliyaan wasiir ka tirsan xukuumaddiisa iyo siyaasi ka soo jeeda deegaanada Puntland horeyna uga soo qabtay xilal dhowr ah xukuumadda ku meel gaarka ah si rasmi ah looma shaacin waxay ka wada hadleen hase ahaatee sida ay u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan xafiiska Sheekh Shariif Sheekh Axmed ujeedada kulankaas waxay ahayd sidii loogu qalcin lahaa Dr. Faroole inuu ka daayo wadahadallada tashwiishka Sheena Culay Home Cable TV Dubai